السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنا ونكسن داوديال Soomaalida meel kasto joogtaan mar kale walaalka wariye Soomaali Maxamed Baruux Xuseen Xariiq Qaxootiga dhab gobolka Qoy Bari toddobaadkii la soo dhaafay daawadayaal waxay idin soo gudbiyay waraysi kaftan iyo xog ogaalnimo aan la yeeshay ama aan ka waraystay Farxaan Salaad Maxamed oo ah wiilkii bishii 12aad ee sanadkii aan ku guda jirnay 2019 ee xaaskiisa arrimo maseer darteed u basisay ama u gubtay dad badan baa muuqaalkaasi daawaday maanta mar kale waxaan la joognaa gabadhii falkaasi lagu eedeeyay waa gabadhan bidixdeeda fadhida Abshiro Rashiid Aadan talow Abshiro ma tahay Abshiro soo dhaw marka hore waan dhawahay walaal waa maasan tahay magacaygu waa Abshiro Rashiid Aadan gabadhii ninkeeda gubtay ma tahay mise ruux kale oo indhashar soo xiratay talow may anigu waaye Abshiro waan kaaga mahad celinaynaa inaad naga ogolaato inaad waraysiga nala yeelato aad waqtiga nasiiso aadna ka jawaabto su'aalahan rabnaan ku weydiino bal sifaan isku waafajina sheekadaadii iyo sheekada Farxaan goormaad isguursateen meeqa carruur isku leedihiin dadka qaar waxa laga yaabaa inay hubsan waayaan inaad kamera soo fariisato Farxaan waxaan isguursanay 2014 bishii 6aad saddex ciyaalna waan u hayaa hadana urbaan u leeyahay alxamdulillah shukr kuma qasaarin guurkiisa ma sha Allah sheekada goorma dhacday waxay dhacday sanadkan bishii 12aad taariikhdu markay ahayd 13 waa maalin khamiis ay sheekada dhacday waa maasantahay mar kale Farxaan wuxuu noo sheegay in habeenkaas shaqo jirtay adiga takhasuskaadu muxuu yahay aniga foonfo waan soo bogay barashadeeda haye marka shaqo MSF hay'adda la dhaho istaalkan meel caafimaad ka helay auxiliary nurse sax marka istaalkan ka shaqeynay marna habeenan galay marna maalin galay kalkaali caafimaad baad waan gartay marka bal sidee wax u dhacay noo sheeg maxaa kugu dhaliyay inaad saygaada gubto waxa ay ku dhaliyay dhibaatooyin badan oo soo jireen 5 sano Farxaan aan wada joognay dhibaatooyin badan ay soo mareen marka waa iska dul qaadanayay laakiin hadda inaan falkaas sameeyo ma ahayn marka arin si xun u dhacday noqotay shaydaan uu ka qalib noqday bilow aadan warxumada shil oo dhaxdeena ku jiray dad ehelkiisa ay kamid yihiin marka hadana alxamdulillah shukru waa ilaahay Farxaan uu soo badbaadiyay alxamdulillah ma iskale habeenkii shaqad aadayood ku maqnay sida Farxaan noo sheegay inaad qirayso subaxdii baad cid imaatay qoonsimaad iyo waxa ku sii jiray maseer marka hore mise intaad maqnayd bay arrimo kugu dhasheen oo sidaas baad falka u sameysay maya wax maalintaas ayada arintii ugu bilaabatay ma ahayn arinta maalmay soo socotay ilaa iyo muddo 7 bari camal soo socotay warxumada shil baa dhaxdeena ku jiray waxaan soo maqlay Farxaan in laba gabdhood isaga awgeys ay isku dagaaleen meesha oo raashinka lagu qaato keer hada dhigaxleena waa aragtay meesha keer raashinka lagu qaadanay iyo suuqa waa isku meel marka Farxaan laba gabdhood isaga awgeys isku dagaashay sida la ii sheegay warkii bakan soo maqlay oo soo ogaaday Farxaan waa uu maad waxaan walaalow see wax u jira arintaas dhacday marka sababta isku daalaan maxay ahayd waxa la dhahay labada gabdhood xiriir baa ka dhaxeeyay asaga isku wada labadaba marka meeshay ku kulmeen hada wixii isweydiin la ima sheegin labadii Farxaan awgeys isku dagaaleen baa la dhahay asagana dagaal kuma jirin laakiin wuu taagnaa marka warka yaa ii xaqiijin kara yaa maxaa dhigi jiray xaqiijin isiin kara asaga Soomaha asaga aan u imaaday Farxaan oo dhibkaas aad igu sameysay kalsooni dara igu beeraysa arintaas dhacday waana iga qarisay wax u jira Farxaan Salaad wuxuu ku dhahay gabdhaha waan isdagaalna waa run laakiin relationship nagama dhixin xiriir lagama dhixin aniga gabdhaha haye maxaa idinka dhaxay maxaa isku dagaasheen mushmaca keer dhaxdiisa maxaa isku dagaasheen haye Farxaan wuxuu dhahay anoo keer shaalka iradiis iska fadhiyo oo wiilka kaarka saxay meesha ku sugay gabar meesha taagneed caag igu dhafatay caaga markay igu dhafatay maxay caag igu dhafanayaan dhahay gabadhi waan muranay tu kale to qaraabo aan hay soo booday oo aan ii heelinaysay tii waxay dhahdeen maxay wiilka caag ugu dhafan laba gabdhood meesha isku dagaaleen gabarna dhaga ka dhuntay gabarna mobile dhagdahab gabarna mobile ka dhumay sida maqlay tan mobile ka dhumay ay Farxaan isku ciidiin cawlahan waa lagu dhahay tii mobile ka dhumay waxaan maqlay in mobile loo gadaayo oo loo iibinayo marka warkii waan soo ogaaday asagii waan weydiiyay wuxuu dhahay waxa isma jiraan mobile ma dhumin ani gabarna isma dagaaleen laakiin dagaalka wuu jira labada gabdhood ayaga is dagaaleen waxayna isku ani awgeyn way isku dagaaleen
caagaas ay ugu dhafatay midda qaraabanimo ay u heelinaysa tan qaraabanimo ay u heelinaysa tuna waxa ay ugu dhafatay adag marka ma aamin warkaas ma aamini waxaan ku dhahay tan caaga markay kugu dhafane maxaa ka horeeyay tan ku heeline maxaa idin dhixiyadi farxaan warkii si fiican ugu muuqeexin kuma qancin sidii ugu qaaxay naan waxaan dhahay muddo 3 bari aan ku siinaa 3 bari aan ku siinay arinta ka soo fikir war sax ay keen anna magaaladan galo warkii waan soo dhuuxanayaa akhbaar baad raadis haye maalmaha kamid ah subaxa asaga wax aan gubi doono farxaan eedadiis aabihii la dhalatay ayaa igu tiri eedo arintan way dhacday ana wax raadis farxaan iyo gabar ay isdagaaleen ay dhacday 2 gabdhood meedin farxaan 2 gabdhood ay isdagaaleen farxaanna meeshuu taagnaa gabar cideena mobile ka dhume mobilka ana loo haystaa arinta ilaa stationka gaartay eedo ninkaada waani wala hadal maxaa yeelay fudeedkaas kuma ogeyn farxaan tuugna kuma ogeyn farxaan wali wax hadalay ma dhihin arinkaas dhacday mobilkina waan gadaynaa farxaan adeerkiis iyo ayada inay aruurna ay wiil reef waxa ay sheegtay marka aanay waagaaba igu bariyay arintii way ii cadaatay maadaama eedadiis arinta ii qaxday waab ii cadaatay dhab bay dhaqatay waan gartay marka waxaan sameeyay baba garanay indhaha ay madoowaadeen cidiba daqiiqadan ku tagay aadiyad habeenka shaqaad ku jirtay habeenka shaqaan ku jiray maalinkii maamada suuq isku aragnay way ii sheegtay suuqii markaan shaqada ka soo bixay aan magaalada isku aragnay way ii sheegtay arinkii aniga war baa ma karo raadinaysama waa ii bilaabay xog fiican aad heshay wax fiican aan soo farxaan waani ali dhahay kuweedkaas kuma ogeyn tugnimo kuma ogeyn gabdhahaas la dagaal mobile u dhimiyo mobilka waan loo haystaa annagaan hadda gadayna waan gartay aan ka dhaxgalo abshiro marka halka joogto intaad xaafadda soo gaarin ma go'aanka waxaad gaartay inta xaafadda soo socotay ma marka xaafadda imaataad gaartay meeqa go'aan baas kugu soo dhacay meeqa ficil baa kugu soo dhacay inaad qaado oo tirisaad sameeyay go'aamo badan ay u soo dhaceen maxaa kamid ah waxaan asagoo jiifaan u imaaday maxaa dhigi mana uu hurdayn uu soo jeeday ilmihiisu la joogo inta guruun qaata farxaan madaxa ma jibisaa way qabatay waxaan dhahay farxaan ta guruun ku dhafato haddana qof xanuunsan baatay kugu soo boodiya ka celin uu ku dili nafteeda u baqay waa qodob waxaas la farxaan asagoo jiifo go'aas sirrta inta ku soo laba dhinac soo gadiso ma ku tashaa go'a dhan ku tashaa oo guruun inta qaad irbad doo raadlay inta qaad ku tashaa haddaan ruuxan si fiican uma hurdihaye hadduu kugu soo danaya ka celin macnaha bal meesha ku cel waxa tiri go'a uu ku jiifo intaan labada dhinac uga soo gadiyo inta cirbad qaata ma ku tashaa haye ilaa haddana waxaan ninka si fiican uma hurdihaye uu kugu soo toos marka go'a ku tali soo kuma diray oo kuma soo boodaya ka celin nafteeda u baqada maana ismaad weydiinin qof nool oo soo qof nool see mara lagu tuli isma dheen waxaas laakiin waad awoodi kartaa istiri awoodi karaa waa istiri haddana waxaan u baqay nafteeda waxaan dhahay farxaan wuu ku diri haddaad go'aan ku tashay intaa ku tadi ku reebi ninka si fiican uma hurdihaye wuu ku diri waa laba qodob marka dambana biyahana ay soo baxeen haye ilmahan dabaan shitay ilmahan quraacdo biyaan dabka saar waxaan uu baxay biyo soo dhaamiyay wuu imaadan dib uu iska seexday haye waan u dhaartay markuu seexanay maxaa ku dhahay cad baa lagu jajari waxaan dhahay maanta ha seexanin haye ay seexanin farxaano waad u digtay haye marka asaga uu iska kay aaminay uu iska seexday marka ani biyo ma dabka saaree waan ku shoo biyaha maxaa ku dartay biyaha waxaan ku daray basbaas iyo بس أنا كداري هي لين ولا شيء ما لين كم مدارين تطور رحمة الشير إسكيه هذه أول ما عندنا رحمة الشير كدتك بس بيها لين كليه كدرت لين ما قدرت لين كم مدارين بس أنا بس ما قدرت وأنا سقدر بس كأذية جماش ويا قال دمشق مرقة كرصة وأنا سقدر أمر الله وحتى كل الكسيب كركسيب باكرتي ما كان لي وعطتنا المدة رئيس السعودي هي فرحان 5 سنة وذا جوجن 5 سنة عدود يقوم فرح سنين waxaa ka mid ah hooyadii asaga dhashay farxaan iguma ay faraxsaneen ilmaan u dhalay 3 ciyaal aan u dhalay wiilka labaad markaan uu rahay oo wiilna aan dhalay ay maamadii maxaa dhigi jiray guriga iga kireysatay maamada 7 gabdhood ay dhashay 7 gabdhood iyo maamadii ayaaba gooni iigu heshiiyeen marka gabdhii way soo weerareen maamadii waa diyaar markaan la hadlo gabdheeda jaciga ma dheesayda igu soo boodi farxaan way soo waday wadawaa qof xaamil tahay in lagu dala arka ciidina ku geeyni ciidana uu keenay farxaan maxaa ciidana ku keenay meeshan ku dhalay wiil kale taan dhalay wiil waan watay wiil kale taan dhalay farxaan hooyadii waxay sameysay alaabta guriga way iga soo dirisay guriga way iga kireysatay fadhiga way iga gadatay 3 bari kadib ayaa waxaan maqlay alaabtaada banaanka taalaa
guriga waa la kireystay waanteeda lahaw marka farxaan iyo waan u sheegay eedadiisa maxaa dhigay asaga uu la hadlo u sheegay eedadii baa alaabta noo qaaday fadhigana gabar dariskayga isku xaafadana laga gatay marka horta dhibka dhan meeshuu ka bilowday waa hooyadiis farxaan mana dhib hore qabtay ciil hore taan qabi ciil igu soo gargaaraan qabi marka guriga waa laga kireystay hadda darad bish markay ahayd taariikh 13 bisha 12 guriga aan ka soo baxay farxaan hooyadii way kireysatay guriga hadda intuu ku dhacay ka soo baxay bishan way kireysatay bisha 12 guriga kiraa loogu jiray alaabtan meel ay geysay ma sheegi kari waxay tagtay UNHCR waxay dhaday gabadhii wiilkayga gubtay ma joogto Soomaaliya ku maqan tahay meel ay aad lama garna ilmihii baa gacanta igu jiraan wiilkii wuu maqan yahay isbitaal buu ku jiraa waxaan u baahanahay in kaarki lambarkiisa la isiyo wiilal ree afooxi aan garanay UNHCR ka shaqeeyaan la soo siiyeen kaar nambarka maamadii waxay imaatay meesha raashinka lagu qaato kaarka way calaamadeysatay taas ha hilmaamin dhibaatada adiga laftaada waxyaabihii ku soo gaaray baan gadaal uga darayno sheegi doonaa maalinkii farxaan marka biyo waad karkarisay kadib maxaa dhacay farxaan biyaha waan ku shubay ma ibriiqaad ku karkarisay ma digsi ku karkarisay biyo badan bay ahayn bal noocay ahayn biyaha digsi aan ku kariyay haye digsi weyn haye digsi caadi cuntada sakarsan haye aan ku karkariyay aan ku gadiyay baaldi haye baaldiga san ku shubay farxaan marka inta aad ficilka sameynayso haddaad gadaal u xusuusato maxaad dareemaysay ma isla qumanayd ma sidee ahayd markaas arinteeda markaa 50-50 aad ma ku shubtaa ma iska dhaaftaa ayagu jirtay biyaha markaan gadiyay baaldi aan ku gadiyay gacantaan galiyay biyaha weelkoodan fiiri waxaan ku dhahdana biyahan iska dhaaftaa ma ninka saan ku galay sababta u deeyni maxay tahay marka amar ilaahay ku dhacday arin aan ka xumaaday noqotay waxay Soomaali ku maahday kugu dhacday ka dhacday aad iyo aad marka ani waxay igu noqotay arin ani aan sameeyay anna igu dhacday صح marka ma jacayl baad u gubtay mise nacayb ma farxaan jacayl aan u gubay dadka Soomaaliya way iska warbadihiin farxaan waxa la dhahay canjeero duwaye farxaan ilmaha habeenkii maryaha u dhaqaa ay dhaheen farxaan naagta gacanta ugu jiray way ka adka gacanta ugu jiray dhahayaan ninkan ragga asaga cid mas'uulka asaga ani xaqayga qaaday say uga adkaan horta wax ka jira ma laha ka jira ma laha asaga marka ani meel aan aaday haduu maqan xitaa waa inaan waco farxaan oo meeshana aaday way ka barna inaan dhaho waay qofka asaga si ani aan uga adkaan horta waa gartay waa qaad arin warxmad shiilka ka mid tahay waxna kama jiro falk markaad sameysay farxaan muxuu sameeyay aniga markaan biyaha ku sheego farxaan wuu soo budanaa maxaa biyaha igu sheegay ku yidhi mar labaad hadana ku celiyay waan carray guriga soo xiray farxaan wuu baxay iridu ka baxay kadib maxaa xigay kadib ma igu soo laabanay farxaan maxaad maqashay adiga marka xaaladdu sidee ahayd adiga maxaad dareed markaas marka biyaha ku sheegay markaan biyaha ku sheegay guriga ka soo baxay farxaan irida markuu igu dambeysay uu irida ka sii baxayay meelahan garabka way ka maroobeen biyaha ka maroobeen marka waan ka naxay isla markiiba ma ka daba gashaa ma raacdaaba ay qabatay haddana waxaan dhahay marka ka daba gashay dadkiisa kuma diraayo marka ma aadeen laakiin arinteeda marka la dhahay waa la qaadaya farxaan uu ka daray referral waa la qaaday waan go'aansan inaan baxo oo gaaris loo qaaday marka arinta way cusub saamo marka way ila xumaatay inaan ka daba galaan damcay laakiin dad aan qaraabana i reebay laakiin go'aan ani aan leeyahay kuma joogin waxaana maqlay farxaan walaalkiis inuu toori la wareegayo wiilkii toori la wareegaya istaalka irdiisa hadda lagu reebay maxaa soo doon intee mari marka ani inaan iska baxo waan jecel laakiin tolkii way reebay waa cabsatay waa iska cabsaday waan gartay wax lagu gaarsiin ma jira adiga marka laga tago dhag hadalka iyo canaanta iyo waa la yiridaas wax af iyo adin oo soo toos ku gaaray adiga abshira ah ka soo gaaray farxaan iyo ehelkiisa ma jira oo fal celin oo la kulanta wax ani hadda oo la igu dhuftay aan ku dhigi karo qofkaas ayaga aan qaaday ma jiro af xumo oo dad dhalinyaro iska afxumad way jiraan aabihi asaga dhale uu isoo dacweeyay station ku taa laakiin waxa lagu xiray aan ku baxsaday farxaan warqadaha soo saxiixo qoftan soo in la xiray marbtiha asaga soo saxiixo warqada inta laga qaaday gaarisa la geeyay farxaan loo geeyay farxaan warqad inuu soo saxiixo wuu diiday in lagu xiray inuu saxiixo wuu diiday marka farxaan haduu diiday ani aabihi ma soo gaarin laakiin aabaha inuu dhaaranayo oo ilaa hadda stationka uu tagayo aniga horta 3 ruux baa badbaadisay 4 ruux ilaahay ka soko 4 ruux baa badbaadisay waa awowga farxaan awowgiis waa farxaan asaga naftirkiisa eedadii farxaan qaaday oo la socotay wiil adeerkiisu Cabdi Xakiin la dhaho 4 ruux baa mahad u celiyay ma sha Allah ilaahay ka soko ku difaacday waan gartay farxaan in uu diiday in lagu xiro iyo ehelkiisaba ma isleedahay way ka fiicnaadeen
way iga fiicnaadaha maasha Allah aad bay iga fiicnaa weyna mahaysiin walaalkayna way cafiye aniga hal ruux un baan qalad ka galay ninkayga un baan dambi ka galay laakiin Soomaali maxamadan waa dad ay habaarayay dad ay duceynayay dad maxal dhigi jiray aflagaadeynayay dad ay soo caynayay marka inta dhan hadda waxaan wax aqoon laha waan cafiye aniga xitaa waad ila kaftantay waxa tiri fartaad igu godayo dumar badan baa wax gubi jireen maxaa aan tayada u buunbuunso saxaafada bal aniga lafta igu rid waa runtii maxaa yeelay adduunyada ani hortay waxaan way soo dhici jireen naagtiisa gubta hadda ugu horeyso laakiin idinka cawlahan ahaan marka idin dhaho aniga qorsheeya iga dhigteen waana i buunbuunaysan arintii waxay dhahdeen gabar xaaskiisa gubtay adiga hataa waxa dhahday warka marka tabinayso inaa hubsato aad u fiican waxaa tiri xaaskiisa gubtay 6 saac habeenimo sariir lagu shubay هذا مالك آذان كأجو حماد واحنا آذان كأجو حماد ما استري أسير لفتي سنة بياكل شفطة فعلا هذا كلام حقدرتي كين وحوى لو قبون واي ضلك دي بديسة إن لو قاعد على الرباح محاد بكا قوة حقصدي أرنت مرك هوري ما هو بستي محاسا وده اللي نقف كيون سيارة قاعدة بحيث ولا بيجرينا كالكالي عاف مضوها يسا adna haddaad isii bubuunaysaa dhahda wiilkii waa tabcaan meesha wax waa looga qaban waayay wadamo kale wax loo qaadi raba aniga hadda waxaan isleeyahay farxaan aabihiis oo kugu dhaaranayo maxamed daaruud kugu diray macnaha inaan dhibka ka qayb qaato oo aragta hay la dawarkii soo tabisay oo duqi warkii uu fiirsado oo hooyadii warkii ay fiirsato waa waalid wax dhalay ka naxay marka waxaan aaminsanahay in aad igu dirtay oo dhibka qayb ka sameeyay waad aragtaan ani lafteeda way haysataa laakiin aniga gurmad halkan aan ka tagay gurmad baa u sameeyay markaan dhahaynay xilligaana waa noo sheegay ehelka noo sheegay xilli ehelka noo sheegeen bahayd marka waxaan firay geel dida waxa laga dhax qabtay ahayd waqti la ii sheegay waxa kale oo la ii sheegay oo markii dhaqaatiirta xaqiijiyeen horta dibadda maana dhigin laakiin magaalada Gaaris waxa lagu qaban karaa qorshuun ku jira laakiin kadib baan dhaqaatiirta ogaanay in wax laga qaban karo waana qaadanayaan lafteeda qaladkayga ummadda kale Soomaaliyeed waxyaabihii ku soo gaaray maxaa kamid ah waxyaabihii soo gaaray aflagaada kamid ah waxa dal igu dhuftay ma laha laakiin wiil asaga walaalkiisa 20 jir ah maalin kasta mid soo diri jiray inaad noolaato maxamed maxamed kugu talagalay hooyadii to ina hadda noolaato abad si hadasho Dr. Maxamed kugu talagalay laakiin anaga qorshaheena ma aha oo idhahay waa gartay sida ay sheegtay abshiro qof wax bartay baa tahay iskuulka sare bogoy tababar badan ka qayb galay xirfadda caafimaadka qaybta waliba kalkaaliye caafimaad baad baratay adigoo aqoontaas leh oo qofkii lagu dayan lahaa ah in waxyaabo dadka qaar ay ka xishoodaan ka gooyadaan aad samaysato maxay tahay kulata xumaata badan oo aan u dul qaadanay ayaa igu sameysay qofkii aan u samray aan u dul qaadanay asagana way garan waayay farxaan kala gaceel aan u qabo aan 75 kun meel cadoy gacanteeda uga tiri oo aan shaqeey maxaa u sameynaa kala gaceel aan qoon shaqo abuur aan u sameey dukaan aan u dhisay maxaa dhigi 75 kun iga gashay walaalo shaqeyso reerkaada meel iska soo bixi hooyadiisa xuna u dul qaadanay walaalihiisa aan ximinay baa u dul qaadanay asaga aan aamin oo qarashkayga farta aan ka saarana maxaa dhigi way garan waayo dumar kale inuu igu wado iyo naawo shaqaansanaya iyo gabdhaha isku dagaal hadii la dhaho aniga aad baan uga xumaaday isku darayaasha kale dalayaasha war xumatay sheelayaasha adiga oo ku sheekay iyo kuwa kale u sheekay warkooda hadda maxaad ka aaminsantahay dadkaas warkooda ma ku faa'iido warka ku sheegeen gabdhihii iyo dumarka ku sheekay warkooda ma ka faa'iiday mise ku qasaartay ma kuma faa'iido ku qasaaray aan ku qasaaray inay waxaas ii soo sheegaan ma ahayn kuwa badan waxay dhahayn farxaan canjaaru duwaayay ilmuhu dhar u dhaqay waxaan ka wadaa kuwii ku dhahay islaanka loo jecel yahay tu kale la socdaa naaga isku dagaalay kuwaasan ka wadaa warkooda hadda ma kula saxan yahay markuu kula saxsanaayo ficilka ku sameysay hadda sidee kulay warkooda warkooda uu qaldan yahay warkooda inuu qaldan yahay ay ila tahay laakiin ruuxi iga saari lahaa asfarxaan aan iyada saaraya muddo 3 bariyan u sheegay 3 bariyan u qabtay 3 bari gudahooda war saxan ka rabaa maxaa ka yeelay iska dhigay muxuu maxal dhigi jiray oo shab iga yahay ma warka asaga inuu cadeeyo lama rabo inuu asaga waxay fahantiisa dadku qaar waxay isweydiinayaan abshiro intaad gubi lahayd inaad isaga tagto inaad ficil kala samayso qaab kala jiri lahayd hal kale ma jirin waa runta way jiri lahayd
mar baan go'aansaday farxaan inaan kala tagno laakiin calafka ayaa meesha ku jiray dhibaatooyin badan oo igu hayay hadda ka horeeto oo inaan ka tago aan damce hadda calaf meesha iska jira soo farxaan inuu ifuro mise warqadeeda isii weydiiday hooyadiisa xun iyo asaga dabeecadiisa un baan waxirka ku yareeshin weyna wuxuuna idhaa walaahi hooyadii way xun tahay haddii adi hooyada xun tahay waan ku dul qaadan lahaa ii dul qaado weligaa leh idii jiray haddana qofkii inuu qiyaano in la isku digo waa sharaf darro nin reer leh oo ilmo loo hayo oo maxaa dhihi jiray aan shaqaysanaynin oo ilmihii loo soo shaqaynayo in haddaan la dhaho dumar waday maxaa dhihi meesha qof la taagna waa ceeb waa arrin laga maxaa dhihi laga fiirsado in lagu diro khalad bayd baad leedahay aad lafta inaad aaminto khalad bayd soo anigu ina aamin qalad ay taa laakiin waxinaaq iyo masiir awgiis tada kale qofka dadka warka ii sheegay waxaan si fiican ugu aamin farxaan ehelkiisa waay ehelkiisa aad iyo marka waxa leeyahay xasadku ehel uu noqon karaa asxaab kale way noqon kartaa waan gartay wada meel way noqon kartaa ma ka qoomaysay ma ka shalayday ficilka aad samaysay hadda maxaad dareemaysaa waan ka qoomamay arinta kugu dhacday ka dhacday bay igu noqotay adduunyada waxa igu murug badnay farxaan habeenkii la sii waday oo rifaarka loo qaaday habeenka indha isku ma qabanin taada kaleeto waa la sii waday farxaan dhaxda biyay ahayd eedadiisa khayr la siiyo waa markaan waco telefoonka iga qabanaysa ayada wiilka xanuunsan wado telefoonka iga qabanaysa xaaladiisu way waan dhahay ambalaasiya iska taagan biyo meelaan marnaan laanahay laqti lagol dhahay biyo wada amka ay dhahday jidka xirna adduunyada taas ay igu naxdin badan aad leed armo gargaar la labaadna waxay ahayd markii farxaan isbitaalka la dhigay ma tagteen manna waa tagteen kastoo neefta iga soo booday farxadeeda labaad waxay ahayd oo neefta iga soo booday markaan farxaan 20 bari kadib aan la hadlay asaga laftiisa telefoonka eedadiisa igu dhiibsan un bari eed macaan telefoonka igu dhiib hal mar aan la hadlay saan walaha ma hadli karo sayidaysa marka dambe khayr la telefoonka igu dhiibtay farxaan waan la hadlay walaalkay uu mahaysan yahay yafi asagana cafiskaas sidaad u aragtaa maxaad dareentay markuu farxaan kuu sheegay inuu ku cafiyay cafis aad tahay cid saxar dushaada saaran qaadi kartana aysan jirin isaga waxay dhaxmar isagana uu ku cafiyay maxaad dareentay farxad weyn aan dareemo kaliya cafi maxaa yeelay horaan waxaan ka fikiray farxaan adoo arkin abshiray ama uu ku cafin hadduu dhinto haddii aqram maxaa kaaga horeeya adoon ilaahay abuurtaa tahay adduunyadan waxaa lagu ka inay ilaahay caabudo dhibkana samaysay farxaan ku cafin hadduu dhinto haddii adduun waa aqara waa ilmihi kuuga agoonto waayin oo maxaa dhihi jiray wax sabota ka heli ay jirin cidii oo qodad gari dhici karto ilmihiiba laga qaato dhici karto adduunka waa laga bixibo laakiin tii aqara hadan u fikir maamada hooyaday khayr Allah siidan waxay igu dhiirigelisay abshiray dhibkan Soomaan sameeynaha jiif wax la dhaho oo ku yaalo ma jirto adeeg jiif is iloobo tusbax ay soo gad oo 100 xabe waxay dhahay yaa Allah oo 100 jeer dheh subhanallah oo 100 jeer dheh caaw dhan tuko salaatu leyl asmali habeenki karso habeenki haba seexaninbo salaatu leyl tuko marka ma duceysanaysid mise asaga u duceynaysid maya asaga u duceyn ilaahay caafiyo inuu ilaahay cagaha ku saaro inuu gacantayda ilaahay ku sababin adduun waa aqara waa in aan igu dhicin aan ka fikiray marka walaalkay muxuu yaafii farxad weyn aan dareemay alxamdulillah shukr ilaa hada oo duceyn ilaahay cagaha ku saaro ma sha Allah farxan wuxuu sheegay inuu ku cafiyay in maaragtay waxba uusan ku haysanin ana laftana farxad bay noqotay in la is cafiyo hadda xaalad waa sida farxan waa la soo celiyay ma booqan rabtaa xaalad waa sida wali ma booqan farxan waxaan u booqan waay ehelkiisan ka cabsaday ani xumaan igu jirto ama farxan cabsi ka qabo maxaa dhigi uma tagi weyn laakiin aabihiis iyo hooyada dhashan ka cabsaday iyo walaaladiis oo leedahay way ku dhaaranayaan la meeshii wali dhaawici baa jiray dhaawici jira way ka taagan yihiin marka waxaan dhahay dhib weyn inay ka sii dhacaal arkaas aan uga joogay waraysiga ma la weyto su'aalaad qoonsataa jiray sida ay sheegtay maxaa kamid ah su'aalaad qoonsatay ee farxaan la yeelanay waxaa kamid ah waxaa dhahay farxaano gabadhi sidan ku yeeshay wad cafi Soomaha maxaa rajo oo ka sii qabtaan dhahday marka arintaas aadan u dhibsaday hay adi maxaa rajo qabtaa adi aan ku haddaan ku weydiis la su'aashaas reerka sida jeceshaad reerka inuu ahaado reerka soo ilaahay ka dhigay noqon aadiyad soo ilaahay ka dhigo bay noqon reerka farxaan wuxuu sheegtay inuu cabsi qabo aadiyad cabsidana tal uu ka cabsiyo ani oo iga cabsanaa aadiyad wama maayo wuxuu dhahay libaax wuxuu dhahay bari ka goostay oo meesha uu sii jira gal hadii lagu dhaho oo macnaheedu tahay adigu gubto ma meesha joogto sidee lagu aamin waay
aniga asaga aniga bay ka cabsanayaa saas buu dhahaa anigana laba ruuxan ka cabsanayaa haye ani asaga oo i afiyana waan ka cabsanayaa abshiray afiskan lagu afiyay ama been tahay oo shirqool ay tahay asaga gacantiisa uu raba inuu kaaga arsado waa koow waa mid waan ka cabsanayaa haye farxaan eheladiisa iyo hooyadii iyo aabihii iyo walaaladii asaga la dhasheen farxaan haduu ku cafiyo oo maxaa dhigi reerka uu sidiisa ahaado xitaa kuwaas baa ka aarsanaya adduunka haye waan ka fikirayaa sax أنا لوازن كعبسنا فرحان تطلقيس أنا كعبسنا أصلاً عبسيان كعب cabsidaada xag u dhig adiga maxaa ballan qaado haysa hawshaas in waxba ka iimaanayna duu reerka dhisnaan hayo oo reerka sida ilaan had wali waa isqabtaa inay soo farxaan sheegay cabsida maxaad ku bixin kartaa oo maxaad damaanad qaado ballan qaado sameynaysa adiga أنا ما أنا فالحين بنسميه haye حضنا محل يجري إنا مرة ما سمينا مو ملينا أما إيه مرة أنا آخر أدون مرة أنا آخرنا مرة واحدة haye wallahi billahi taala marda ma sameeyna ma dhaad oo ku dhaaratid aan marxaati ka hana anagana ما والله ما سمينا haye ما سمينا shalay soo intay gabdha adiga kule ku sheekeen ma sameeynin armaadana bari shalay biye ee dadka qaar xisleen bari ama toori gelisaa ما أرين حما أرين بس أنا إيه مرة أنا أدون مرة أنا آخرنا مرة أنا مرك أنا واحدة كفر أحسنين بقى قوم مين يا wixii aad sameysay waan gartay أنا مرة لوات كوسي لابتو مرة جينا إلهي إني قوم عليه waan gartay su'aal kala dibsato ahayd aan weydiiyay farxaan oo ahayd arooskaada arooskaada ay qarin ma ku dhax قرنا دورنتا haye أروسك فرحان حتى كلا تجنو الحمد لله شكر أولا صدق haye dad saas u kala go'ay manay laakiin adiga kasta waxaan ku dareemay in arinta booboonayso leedahay farxaan oo qof kale iska guurso oo gabadha warqadeeda si oo arooska dambana hadii waxa isku ogeeyay laakiin ma dhihin sama waxaan dhahay arooskaada laakiin ani waxay ila noqotay adiga saas u qaad ani saas u qaad wali ma isdii kara masirka kugu jira maadaama aniga lafteedu su'aalaha ka masirta abshiray wali waa masirki waa calaamadii ka muuqdo ma dhigi karaa ما يلا ما ديكرا haye hadda qofkii inaad maxaa dhigi si degan oo la hadasho baan rajeynay ma oshi inaa mush ma dhaxdii dhahdo farxaano ee xaaski maxaa rajo ka qabtaa inaad dhahdo soo waan yar dhibsaday had dad badan oo Soomaaliyeed baa wareysiga farxaan iyo cafis kadib waxay leeyihiin baaruuda waxaad ka qayb qaadataa sidoo reerka cagiisa ugu istaagi lahaa reerka ku sii dhisnaan lahaa adiga maxaa ku talin lahayd say ku fiicnaa soo arintaas ما هذه السؤال هذا وذا جوجنا هذا كويديو ما هذا قانك أسرع إسكال مقت قانك أسرع إسكال الدورة كيس ودس لكن واحد طلعت ديو ملعدي أنا قاعد في إسكال صيب ضمبانية لها هلا عفية ما انقرتي سيدا شيكتي من كان حقوق مسير صوص ما مسير أنقبل إنك وحمان أم قبل يعلن جعلها أنقبل مسيركم حيو ترى موالبة مجعلبة مفيوبة محيت والله ما عندي كرا هذا وح ما كان دبك كل عضو وبواء وبري مركا واسك والله ما عندي كرا أنا هذا كور فعل نوع عسكر ما كون فكرت أنت تذكر ما هي ولي ما فكرن ولي ما فكرن أرين كاس ما كان حتى سوس عندك ما فكر ما إسكح أنا قي ما أصلها اللي كري لكن ما كان عندي ما هذا بارتس أنقو أنصد تذكر قارح سويدين هين أفر برا قالوا بني كل جاب قبي فرحان سووا شيء حتى تبرو إسلام كلا كجورس دمون قبين nin wax kale meel ku haysta ma ahayn nin adigu kula daala dhacay caruurta isla kursanayeen buu ahaa maxad isaga u aamin weysay oo dadkan kale hadaladooda u aamin talo waxaan u aamin waayay asaga aan rabo inuu warka iga xaqiijiyo warka iga ma xaqiijin kuma qancin maalinka aan weydiiyay wada waxa dagaalkan uu jira kisto fiir waxna uu ii sheegay waxna uu ii qarin bas dhigi kara dhag war cunta war labaad cuntada ahayd oo war hore ku sii horeeyay ما يلا ما ديكرو محيل أسجع محل يجي أن ربي إنه صفي عيقان هي وحي جرو حطوا يدو حتى ولا الله ويجرته وانسميه قال ذي كود عد مرضى بنا ما دعيس واسك أعمل هاني لكن أسجع محل يجري صفي عنه موسم موجين أرنتيس ما علين كان وجودن بس كذب يلا مو هذا سدح البرية وقفتنا وين عفت ما شاء الله بلان بعض وقفت سدح برية وقفت سدح برية وقفت دمر كلا جيابو إن فلك النوع عنو كلا إن كوفي كرايا أما مسيرسن أما حيابها النوع عنا maadaama adiga aad 10 hadda qaadatay maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa marka la masirka laga fiirsado inuu talab badan la qaato baan kula talin lahaa oo qaladka durba lagu dhadhicin loo fududaan ma sha Allah wasdi kara adaaba show fiicnaan lahayd inaad
dadka la taliso hadda ka bacda hooyadii masayrka aad noqoto waan la tarin karaa wallahi haye waan la tarin karaa wixii waana waan siin karaa because ana igu dhacday ما شاء ana الله wax walba soo arkay aad iyo aad DBDF waxay leedahay ana soo arkay Aad iyo aad. waan la tarin karaa ما شاء الله markii kugu darneed goorma ahayd intii arintan dhacday xilli kugu darneed kugu walbahaar badneed markii laga soo tago marka kale kugu walbahaarka badneed xilliga ahayd waxa igu walbahaar badnaa farxaan marka la dhahay referral loo qaadaya farxaan waa sakaraad wuu darsaday istaalka MSF lama seexin rabo referral loo qaaday aad waxa leeyahay hayra kulaado istaalka baa la seexin daawon baa la siinay waad u tagayaan laha haye galabta baa u tagtay islaha inta waarka la geeyo صح marka arinta saan ku dashanay may noqonay inkastoo aad sheegatay oo tiri la ima turin haddana cidda ama kuwa ku cafiyaha ama kuwa kale ayaga laftooda ku soo hadla ha ahaadaan oo geedka fooda ku haya maadaama dadkii la xakameeyo ma kasti la xakameeyey ma sidii kara reerku waa reer gob ah reerku waa reer gob ma sha Allah laakiin hal baruura qormisa wala ma qashay dad malaa'ig lama wado lama wada aha waan gartay laakiin dadka way badan yihiin aad iyo aad inta fiican ayaa aan ku afar ruux bis aan ku dhahay ma sha Allah afar ruux bis waan maxay cidda saytiga wanaajisay asxaan ii fashay laakiin hooyadii aabihii dhaleen ana asxaan ii may farin aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa daawadayaal mar kale waxaan idin leeyahay idinkan aad ku mahadsantihiin daawashadeena barnaamijkan oo ay marti noogu ahayd nala joogtay nala falanqeynaysay waqtigeeda naga ogolaatay abshiro rashiid aadan oo ah gabadhii haddii saygeeda gubsadan ku dhaaxinaaqin gabadhii u soo xaydxaydatay u soo guguntatay xinaaq isxajin weydee markii dambe intay masayrta loo soo sheekeeyey wadaadkeeda biyaha kulul baaldi biya laba jeer ku shubtay baaldi biya ku shubtay waxa xusid mudan in abshira ay ka qoomameynayso ka shalaytoonayso aysan sida sheegto ku faraxsanayn wixiina uu ahaa wax ficil iyo masayr iyo la yiri iyo sheeko qaaday sidoo kale waxay qirtay in ay ninkeeda u gubtay ama falka u dhacay sidoo farxaanba sheegay oo ah war dad yiri iyo shaki balse wax kastaba qadarta Allah ay ku dhacday isla markaana aad ugu xun tahay ilaa haddana ay ka warqabto cafiska walaalkeedna aad iyo aad u soo dhaweynayso iyadana ay cafisay dad badan oo aniga laftaan ku jira Soomaa أنا تبي عفيس. أنا كو عفيس حكي مثلا. هذه الدور ما سنتهين ورحمة الشيل بدنا أسكجر أنا قلفت مركز ساكن حافظ السوق قالها وعبسن هي حالة مركز لسه هلا لو هلا وعبسن أبشر وأنا عبسن أكون شيء سومي. ها إيش أكتور أنت. قولي هذا السوق قالين مركز سوق قالين وسوق اللي بناك دبعنا فريستو نينا صاحب من هو ساكن إريني وشيء كان سو سمين ربا أرنتاسن حالكاسن كشغيرة وحدانيو حال سمين ماشي تين هذا تكتن قولي هجيل. marka maaragtay shaki yaqiin looga bax ana abshir wax ima yeelin waa gabar taas wanaagsan ee Soomaaliyeed qof kastana qalad waa ka dhaca kuwa dad dilay kuwa dad dhaca kuwa gabdho kufsada kuwa dawladda dhisan soo dumiya waliba maaragtay abshir waxaan aad uga mahadcelinaa inay qaladkeeda qiratay ka qoobameynayso cafisna ay dalbatay la cafiyeen aad ugu faraxsantahay sidoo kale de Soomaali badan baa soo wacdo dhahay reerkan waxaan rabnaa inuu sii dhisnaado reerkan uu dhisnaadana waan rajaynaynaa waxaan rajaynayaa waliba arooskan sheegayna aad noqoto mar kale ya inshallah soo sidaas ma inshallah marka aad iyo aad ugu mahadsantiin mar kale walaalka wariye Soomaali Maxamed Baruud Xuseen waan uga mahadcelinayaa qof kasta oo muuqaalkan daawada waxaan rajaynayaa in aan dhanka wanaagsan ka eegno in reerkan u duceeyno inaan gabadha lafteeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida sheegto way bareeday ducada Ilaahay ka aqbalay wadaadkeedana hadda uu soo caafimaadaya farxana aad buu runtii niyadiisu u wanaagsanayd anigana waxaan leeyahay mar kale iyo mar saddexaad gaar ahaan dadkii channelkan Dada Media channel ku xirna aad baan runtii uga mahadcelinayaa dadaalkiina iyo daawashadiina iyo ka warqabka aad iyo aad ugu mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.